socdaal weyrshaxuux iyo shawgiisa yaa la aadin miga balan qaadaysiin codka kor u qaada balan ma ku galayna ana shawga la aadayn fanka socdaal waa niic iyo dhiiqo waay socdaal eeyahu la sheekaystaa sharma boy waxaa soo dhaweysay gabar hal shay ma wadato hal shay iidoona wadan ay sharma boy soo dhaweysay markaasuu ku dhuftay oo ku boobo social media maanta Sheekh Shantaaya ku jiro saasan isku daba joogayna aniga idinka sharma 1 milyan baa daawatay hal maalin 360,000 oo views-na uu helay socdaal weyrshaxuux ma wax ka sheego wariyayda darada nagala taga goobihii ilaahay ugu jeclay buu wax ka sheegaya yaa arkay wasiirka diinta oo qaafta oo dhahaya fanka hala baajiyo wasiirka diinta oo qaafta oo khamriga iyo xashiishka iyo caraqa iyo taabuuga ka hadlaya arkay bismillah Sheekh Shantaay suu socday socdaal iyo Sharma Boy ayuu gabsaarka ka tuuray fiidiyogiisa ugu dambe ayuu saaid u karbaashay socdaal Sharma Boy wuxuu dhahay joojiyaan dhaqan xumada ay ka wadaan social media maalimahan dambe daawadasho u aragtay Sheekh Shantaay social media ayuu ku soo batay mar walbana uu ka hadlo dhaqan xumada dhalinyarta qaar social media ay ka wadaan sheekha dad badan ayaa sabab gareeyay wuxuu sameeyay sababta lama arag sheekh social media intuu soo fadhiisto qof walba dhuunta intuu soo qabto meel public ku karbaashay lama arag culimada kale kor ayay ka tataawanayeen sheekhan soo baxay lama arag dad badan oo dhaqan xumo ku sameyn jireen social media xabsi ayaa wada gashay Sheekh Shantaay wuxuu saaid uga hadlay uga xanaaqay xitaa gabadhii soo dhaweysay Sharma Boy oo dad yar qabtay maalmihii hore reaction wuxuu ka bixin jiray gabdhii dhalinyarta qaar ay ku jiraan Samiixa Khaliil Dirisla Cabdi warax ku dhiigle reaction ku u bixin jireen iska normal ahayd laakiin fiidiyogan kale ka dugnaa wali lama arag Sheekh Shantaay oo xanaaqay cumaamad ayuu tuuray markuu arkay Sharma Boy gabadha soo dhaweysay iyo nooca u labisneed dad badan way sabood gareeyaan sheekhan dad badan way ka soo horjeedaan waxay leeyihiin sheekhan hadduu arkayo qofka dhaqan xumada wado caadi si gooni ahaan ma ula hadlo uu iska dhaafo waxan uu sameynayo qofka life uu karbaashayo Sheekh Shantaay wuxuu dhahay wuu sii wadi doonaa ilaa laga waayo dhalinyar ku nikiso dhaqan xumo ku sameyso baraha bulshada inta u badan Sheekh Shantaay markuu hadlayo waxyaalo fani ayuu ku dari jiray oo dadka ka qosashinayo dhiirigelinayana laakiin fiidiyogan uu reaction ka bixinay Sharma Boy iyo socdaal hal mar hata muusonin adigan idaawanayso sheekhan maxaa leedahay wali lama arag sheekh intuu social media soo dhex istaago ka hadlayo qof walba wuxuu sameeyo culimada inta badan magacyadooda may kala garan jireen sheekhan intuu magacooda bartay ayuu xitaa magacyo kale u bixiyay ma habeenkii intuu fadhiisto yuu qof walba wuxuu sameeyo fiiriyaa mise markii hore wuxuu u ahaa fan sababta suu garanayo adigan hataa uma garanaysid aniga waxaan dhihi lahaa
hadduu ragga uu qabto uu karbaasho dhib ma laha ee dhibka jira waxaa waaye gabdhihii ayuu ka daray. Ma fiicno gabar in public lagu caayo, berrito hooyo ayay noqonaysaa, berri waxyaalahan uu ka hari doonaa way arkayaan, nolosheeda ayaa ku halaabi karta. Inta u badan Soomaali waxay dhahaan ninka ragga ah ceebta ma qabato, gabadha hooyo ayay noqonaysaa, ilmaheeda ayaa arkayaan waxan. Sheekha waa laga fiicnaan lahaa in uu gabdhaha iska daayo uuna gabdhaha ku mashquulin. Gabar ma fiicno intii lasoo istaago meel social media magacyo loo bixiyo, si walbay dambi u leedahay. Gabadha waa laciif sida ragga ma aha. Nimanka laga yaabaa markii wax laga dhaho inay hadalka iska sii wataan, inay meeshii ooga tagaan hadalka, laakiin gabadha habeenkii ayuu ku soo noqonaya way fikiraysaa. Sababta qof marabo maanta gabar intay meel soo fadhiisato ay ka aragto ayadoo la caynayo shaashada, qofna jecel walaashiis inay la caayo mise hooyadiis inay la caayo ma jiro. Waxaa fiicnaan lahayd sheekha inuu iska dhaafo dumarka uu karbaashka ragga wado. Wallaahi intuu Sheekh Shantaay soo baxay dhalinyaro badan oo waxyaalo wasakh ku samayn jireen sida kuwii qaadka ku cuni jireen live-ka oo barayaan sida qaadka loo cuno. Waqtigan lama hayaa 8 saac oo haweenimo ayay soo fadhiisan jireen. Suu Sheekh Shantaay u soo baxay weli lama arag. Sheekhan waxaa loo soo diray inuu social media xaqo weliba TikTok. Waxaa sunta wado sunta social media meesha dhaqan xumada laga wado waa TikTok. YouTube-ka waa laga yaabaa inuu ku qabto haddaa khaladaad qaar samayso, laakiin TikTok waxaa rabta ayaa samaynaysaa. Dadkii waxaa galay dhaqso ku caanbaxa, caannimo ayaa qof walba dhagaha u gashay. Qof walbana wuxuu raadinayaa bariiska, laakiin bariiska si uu raadinaya ayaa si khaldan ah. Sheekha si walbuu views u raadsado, waxyaalaha qaar uu sameynayo waan ku haysanaa. Waa la waayay qof xaqo social media.